kulan kale oo ahaa kulan lagu soo dhaweynayay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Abukar oo halkan aad ka muuqda ayaa shirkani markii uu soo gabagaboobay sida arkaysan halkan ay ku sugan yihiin gudidii xisbiga kulmiye ee laanta Denmark ayaa waxa xisbiga ka mid noqotay oo ku soo birtay iyaduna Umar Horeeyo markii horena ka mid ahaa jirta kulmiye una gudubtay xisbiga wadani kana soo baxday ku soo dhawow warbaahinta guud ee santahay anigoo magacayga Umar Horeeyo marka waxaan ahaa xisbiga wadani imikana ka soo digirtay soo noqday xisbiga kulmiye marka maanta wixii ka dambeeyay waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye okay waxaan kulay soo dhawow guddiyo halka fadhido ah gudoomiyaha garabka haweenka laanta Denmark Fatima Maxamed waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Umar Horeeyo oo awal ka mid ahayd dadkii hore kulmiye guddiga rogotay xisbiga wadani haddana ku soo noqotay xisbiga kulmiye oo aan leenahay gacmo furo ku soo dhawow dawakaas oo imikana ka mid ah xisbiga kulmiye taasina waa guul weyn oo noo soo hoyatay anaga maanta marka waxaan leenahay gacmo furo ku soo dhawow una ayaan leenahay sidaad arkaysan waxaa si weyn u soo dhaweysay gudoomiyaha garabka haweenka laanta Denmark xisbiga xaakimka kulmiye waa Marwo Fatima Maxamed oo ku soo dhaweysay Umar Horeeyo oo maanta ku soo dirtay xisbiga horena uga mid ahaan jirtay laakiin mar dhexdaas ka mid noqotay xisbiga wadani iyo laanta Denmark waxa dhinacan fadhida Anisa gudoomiyaha qasnajiga laanta Denmark soo dhaweyntaada anigoo ku hadlaya gudoomiyaha qasnajiga laanta Denmark kulmiye waxaan maanta soo dhaweynayaa Umar Horeeyo oo markii horena ka mid ahayd xisbiga kulmiye haba si xataa naga yaray duuftay oo ku beertay xisbiga wadani soo noqotay isgaratay maanta oo dib soo noqotay waxaan leenahay gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow awalba waan ka mid ahayd maanta waan ka mid noqotay insha Allah soo dhawow waan leenahay anagoo aad iyo aad u faraxsan kuguna soo dhaweynayna qalbi furan iyo gacmo furan aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaa halkaas aad aragtaan oo maanta ka mid noqotay xisbiga xaakimka kulmiye laanta Denmark Umar Horeeyo oo filayo inay ku soo biirin doonto xisbiga cudud xoog iyo xoolo fara badan haddii aan hawada rabado sida aad arkaysaan kulankan oo loo qabtay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Abukar oo ku sugan magaalada Copenhagen xarunta dalka Denmark waxa aynu leenahay warbaahinta guud ee waxsan sheegnaysiin magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark barnaamijkan oo soo gabagaboobay weerihiisa ugu dambeeyayna lagu soo dhaweeyay xisbiga xaakimka Umar Horeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.